kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa Somali Press TV qodobada ugu waaweyn ee barnaamij wareedkeena caawa aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono xog xasaasi ah oo laga helay cidda fududeysay qaraxyadii ay dadka shacabka ay ku dhamaadeen ee ka dhacay isgooska Soobe ee Muqdisho maxaa ka jira in jagboonti ay lahaayeen ciidanka booliiska ay ka soo gudbeen gawaarida barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuudna wuxuu wadaa kulamadii ugu dambeeyay oo uu xilka kaga qaadayo agaasimaha nisa mahad maxamed salaad maxaa ka jira in khilaaf cusub uu soo kala dhex galay mahad maxamed salaad iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa hoggaanka maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wado arrin halis ah iyadoo ra'iisul wasaare hore uu ka digay arrintaasi maxay tahay arrinta uu ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid uu ka digay qodobada kale ee xiisaha leh ee barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono xarumaha isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ku yaala Muqdisho oo noqday dhammaantood kuwa dhiig cabiyaala maadaama ay lacago ku xujeeyeen dadkii rabay inay dhiig u shubaan shacabkii ku dhaawacmay qaraxyadii gilgilay Muqdisho barnaamij wareedkeena ayaan qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso leh aan ku faahfaahin doonaa balse haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelkeena waxaan kaa codsanayaa inaad rukumato si ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinada xiisaha leh ee halkan aan soo gelinno mahadsanidin dhammaantiin aan ku bilaabo barnaamij wareedkeena xoga xasaasiya ayaa laga helayaa cidda fududeysay qaraxyadii ay ku dhammaadeen dadka ku dhow 200 ee ruux ee shacabka u badnaa ee ka dhacay isgooska Soobe ee Muqdisho xog ay heshay Somali Press TV ayaa qeexaysa in labada gawaari ay ahaayeen gawaari nooca raaxada oo ay qaraxyo ka soo buuxiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab waxayna Muqdisho ay ka soo galeen dhinaca iyo deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose labadaani gawaari oo mid ka mid ah uu ahaa gaariga loo yaqaan noohada ayaa macluumaadka aynu helnay waxay xaqiijinayaan in noohada iyo sidoo kale gaariga kale ee la socday ay ka soo gudbeen jagboonti ay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay ku lahaayeen isgooska Banaadir ee magaalada caasimadda ee Muqdisho sidoo kale gawaaridani qaraxday ayaa la sheegay inay ka soo gudbeen jagboontiyo iyo sidoo kale xarumo ciidamada booliiska Soomaaliyeed ay ku lahaayeen ex control afgooye ee magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana taasi ay sababtay in gawaarida qaraxyada ay ka buuxeen ay gudaha u soo galaan magaalada caasimadda ee Muqdisho ayagoona aaday dhinaca iyo isgooska Soobe ee Muqdisho oo markii u dambeysay ay isku qarxiyeen waxaa sidoo kale la sheegayaa in xooraansi ay wadeen hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee nisa ciidamo ka tirsanaa uu gebi ahaanba fashil ku soo dhammaaday maadaama ciidanka nabad-sugidda ay ogaayeen xogta qaraxyada ayna la wadaageen wasaaradda waxbarashada mas'uuliyiinta ugu sarreyso waxaana sidoo kale xogtu ay tilmaamaysaa in shaqaalaha wasaaradda la fasaxay 2 maalmood ka hor inta uusan qarax ka dhicin xarunta xogtaasi ayaana nabad-sugidda u gudbisay maamulka iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada waxaana loo sheegay in laga cabsi qabo in xarunta wasaaradda ay wajahdo weeraro ku bilowdo qaraxyo ismiidaamin ah oo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab qorsheynayeen in wasaaradda ay ka fuliyaan oo ugu dambeyntii dhacday ilaa iyo weli ma jirto mas'uul dawladeed oo laamaha amniga dawladda sida ciidanka booliiska iyo nabad-sugidda kula xisaabtamay mas'uuliyad darradii sababtay dhimashada dad ku dhow 200 oo ruux oo u badnaa shacab birmageeda aan waxba galabsan caruur waalidiintooda ku waayay iyo sidoo kale dad ay ku tiirsaneed nolosha dad badan oo Soomaaliyeed waxaana jira burbur hantiyadeed oo xoog leh oo soo gaaray goobta ay ka dhaceen weerarka baahalnimada ay Al-Shabaab adeegsadeen qodobareedka kale ee barnaamij wareedkeena ku jira haddii aan sii faahfaahinno madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wada kulamadii u dambeeyay uu la qaadanayo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre iyagoona kulamadaasi diiradda ku saaraya xilka qaadista agaasimaha hay'adda nabad-sugidda mahad maxamed salaad oo la sheegay in hay'addiisa ay gabtay mas'uuliyadda dhinaca amniga ee ka saaran gudaha dalka waa khilaafkii uu horeeyay oo soo shacbaxay isla markaana ka dhex qarxay madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale
agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad oo saacadaha soo aadan uu madaxweynaha xilka uu ka qaadi doono madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa la sheegay tan iyo markii uu la wareegay xilka agaasimka hay'adda nabad sugidda xiriirka ka dhaxeeya xafiiska madaxtooyada iyo hay'adda nabad sugidda uu ahaa mid gaabis ku jiray agaasimaha NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa wuxuu ka mid yahay xubnaha ugu saameynta badan dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoona kol hore lagu eedeeyay in xiriir dhow uu la leeyahay hoggaanka kooxda Al-Shabaab waa isjilaafeen siyaasadeed oo ku bilaabatay dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo muddo ku siman 8 bil aanan jirsan in xilalka ugu muhiimsan ee dawladda laga qaado shakhsiyaadka uu madaxweynaha uu ku aaminay in loo dhiibo xilalka ugu miisaanka culus ee Soomaaliya qodobareedka kale ee barnaamijyadeena ku jira haddii aan sii faahfaahinno madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay wadaan qorshe halis ku ah guud ahaan dalka iyo sidoo kale xasiloonida Soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaana daaha ka qaaday in ay jirto shirqoollo ay maleegayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale hoggaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa go'aanada ay ku dhawaaqi doonaan maalmaha soo aadan hoggaanka dowlad goboleedyada iyo federaalka wuxuu ku tilmaamay arrin halis ku ah jiritaanka iyo sidoo kale xasiloonida Soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa sheegay in damac muddo kororsi ah uu ku jiro madaxda dawladda iyo hoggaanka dowlad goboleedyada dalka haddii ay ku dhaqaaqaan arrintaasi ayuuna qeexay inay wiiqeyso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo marxaladaasi dalka ay gelin karto weji kale oo siyaasadeed Cumar Cabdirashiid oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa waxa uu sheegay inay ceeb ku tahay hoggaanka dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalka inay u hanqaltaagayaan muddo kororsi ay markii hore ay ka diideen madaxdii hore ee loo sameeyay haddii ay run noqoto wararka xanta ah ee maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada lagu hayay waxayna u badan tahay in ay wiiqdo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ayuu yiri Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke hadalka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ku shirsan Muqdisho weli aan warmurtiyeed ka soo bixin waxaa soo baxaya warar sheegaya in muddo kororsi 2 sano ay ku darsan doonaan xilhaynta madaxda dowlad goboleedyada si dhabana arrintaasi Soomaali Barees uma xaqiijin karto guud ahaan saaxiibayaal waxaan halkan ku soo gabagabeynayaa barnaamij wareedkeena inta barnaamijkan kiisi xiga aan ku kulmi doono nabadgelyo dhammaantiin